innaga oo xogaheena iyo arrimaheena inoo khaaska ah marar badan bannaanka keennay ayaynu cid kale dusha u saarnaa ama aynu ku eedaynaa in ay ka dambeeyeen ama ay fashiliyeen qorshaheenii nolosheenii khaaska ahayd iyo waxyaabo badan oo inagu xeeran oo aan loo baahnayn in ay bannaanka yimaadaan. waxyaabahaasi waxa ay yihiin kuwa noloshiisa khaaska ah ama waxyaabaha isaga u gaarka ah ee aanay ahayn inay la ogaadaan ama kala warhayaan dadka kale ee bannaanka ka isaga. mowduuceena maanta ama barnaamijkeena waxaynu kaga hadli doonaa 5 waxyaabood oo ay tahay in aadan cidna la wadaagin oo ay adiga kaliya ku ahaadaan sir ama kaliya ay kugu koobnaadaan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka sidoo kale riixo kambalelka. 5 waxyaabood oo aamusnaan ku wacan ama aanay cid kale in ay kula wadaagto ama ay kula ogaato aan ku wacnayn. waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeena 5taas waxyaabood oo la doonayo in qof kastaba ay u ahaadaan sir ama keligii ay ku koobnaadaan. 1. qorshahaaga. hadafkaad nolosha ka leedahay, qorshayaashaada kuu degsan, waxyaabaha aad qorshaysatay inaad samayso, kuwaad isleedahay mustaqbalka samee, sida aad u noolaan doonto, qorshayaasha iyo barnaamijyada aad damacsan tahay inaad noloshaada kusoo kordhiso, waxyaabaha doonayso inaad samayso, iyo qorshe kasta oo kuu degsan kaasi oo ku saabsan mustaqbalkaaga iyo noloshaada, cidna ha la wadaagin. waayo waxaa dhici karta 1 in lagaa carqaladeeyo oo lagaa farsamo xumeeyo ama in lagaa waxyeeleeyo qorshayaashaada ama in lagaa niyad jabiyo oo walaac iyo shaki lagaaga abuuro qorshe kuu diyaarsan oo aad doonayso inaad ku dhaqaaqdo ama aad fuliso, kuwaasi oo ay dadka qaar ka tahay xaasidnimo halka qaar kale ay ka tahay in aanay iyaguba qorshayaal lahayn, taas oo ay doonayaan inaad halkaa kala mid noqoto. marka koowaad, qorshayaashaada ama qorshayaashaada cidna ha la wadaagin. 2. jacaylkaaga ama xidhiidhadaada ama xaaskaaga. qof kasta oo nolosha aadamaha ka mid ah waxa uu leeyahay nolol isaga u khaasa, noloshaas oo kala dhaxaysa lamaanihiisa, ha noqoto qof guursada iyo qof aan guursan. inta badan caqabadaha dadkeena soo wajaha waxaa ka mid ah in qofku xidhiidhadiisa ama jacayladiisa ama noloshiisa khaaska ah uu bannaanka keeno in ka badan inta ay tahay in uu bannaanka keeno. waxa laga yaabaa in qofkaasi xidhiidhadiisa iyo jacayladiisa aanay waxba u qarsoonayn, wax walbaba uu bannaanka keeno. xikmad ayaa tiraahdaa qof kasta ama laba kasta oo la ogyahay in xidhiidh ka dhexeeya ama wada socda in ka badan inta ay dadku sugayaan in ay nolosha ku midoobaan, waxa ay sugaan in ay goorta ay kala tegayaan ama ay kala boqolayaan ama ay isteynayaan. marka mar walba dadku labada qof ay isku ogyihiin ama dadka ay isku garan ogyihiin intooda badan waxay rajeeyaan ama ay fishaan maalintuuna ay kala xari doonaan ama maalinkuna waxay isku qabtaan. dadka noocaasina in badan ma heshiiyaan, ma wada noolaan karaan, mana wada socon karaan. ay sababtu tahay waxoodu waa wada wax bannaanka yaala oo maaha wax iyaga u khaasa u qarsoon. arrimahoodii wixii ka dhex dhacay cid baa u xalinaysa, cid baa ku dhex jirta, yacni maaha laba qof oo iyagu keligood ku ah, laakiin waa wax lagu dhex jiro oo lala socdo. marka marnaba xidhiidhadaada ama jacayladaada ama xaasaskaaga ama saygaaga oo kale marnaba noloshooda iyo waxayna ka dhexeeya ha ka dhigin wax bannaanka la soo dhigo. 3. dakhligaaga ama lacagtaada ama hantidaada haysato. hantida iyo dakhligu waxaa jirta in bini aadamku lagu ku kala badan yihiin, qofba in gaara ha yaraato ama ha badnaato in ay kusoo hagaagayso. qof walba oo ka mid ah bulshada waxaa soo gala dakhli haba kala badnaadee, laakiin qofna qofka kale ma oga. intooda badan markasta oo dakhligaaga iyo hantidaada aanay cidi kula ogeyn waa markasta oo ay ammaan ku jirto xaaladaadu, sidoo kale ilahaaga dhaqaaluhuna ay ka badbaadayaan dadka kale. 4. xagga aad u dhaqaaqayso ama marka aad qorshahaaga samaysato, qorshaha aad samaynayso ficil u beddesho, kadib ficilka tallaabada ku xigaysa cidna ha la wadaagin.
waxaa laga yaabaa in dad badani ay kaa carqaladeeyaan ama ay jidka kuu galaan ama ay ku dhagax tuuriyayaan ama ay ku niyad jabiyaan iyaga oo uga dan leh keliya in ay kaa khalkhaleeyaan tallaabada labaad eed qaadayso maadaama aad tallaabadii hore aad soo qaaday aad ku guulaysatay. waxay isku dayayaan si kasta oo ay kaaga joojin karaan in aad tallaabada labaad qaado. marka marnaba ha la wadaagin tallaabada labaad ama tallaabada aad jeceshahay inaad qaado qofnaba. adigu keliya aaminsanow, ficilkeedana la imow, keligaana isku koob, israjee in aad qaban karayso waxaasna. 5 arrimaha qoyskaaga ama xaafadiina ama qaraabadiina. arrintani waxay u badan tahay mid inta badan bulshada ka dhex dhacda. wax kastoo faamiligiina ama qoyskiina ama xaafidihiina inay dhex mara ma aha marnaba inaad keento bannaanka ama aad uga sheekayso cid ka baxsan iyaga uun. arrimahani waxaa jira dad badan oo ay faamiliyadooda ama qoysaskooda ay dhibaato ka haysato haddana aan marnaba bannaanka keenin, halka qaar wax yar keliya ka dhexdhacaan ama wax kasta oo dhaca haba yaraado ha weynaado bannaanka keena. taasina waxaan aad u wanaagsanayn, marnaba kuma wanaagsana noloshayna ama noloshayna oo dhanba in arrimaha qoyskeena aanu bannaanka keeno. ha noqoto tan xaafadaada khaaska ah, ha noqoto tan faamiligiina, ha noqoto tan aabbaha iyo hooyada, ha noqoto tan dadka qaraabada aad ku dhadhowdihiin. marnaba arrimahooda ama arrimaha idinkana ka dhexeeya bannaanka keen. waayo mar kastaba cadowgeena iyo dadka kale ee idinka fog waxay la yaabayaan ama ay la tacajabayaan ama ay ku qoslayaan yacni ficiladiina xunxun iyo waxyaabaha idinka dhexdhacaya. cid kastana way ka dhexdhacaan, laakiin idinku waxaad dheeraanaysaan inaad arrimihiina bannaanka keenteen oo aad dadka uga sheekayseen. cid walba waa isqabataa, waxyaabo badan waa laisku khilaafaa, mararka qaar khaladaad waaweyn baa dhaca, laakiin cid walbaba arrimahaas oo kale qoysaska ma dhaafaan. haddii aad adigu bannaanka keento waad ka duwanaanaysaa sidaas oo kale. 5 qodob waxaan rajeynayaa qof walba inaanu bannaanka keenin, u aamusnaado ama ay aamusnaanta ku ilaaliyaan. qof walba waayihiisa isagu laabta ku haysto. 5 qodob haddaan dib inuu xasiyo waxay kala yihiin qorshayaashaada. qorshe kasta oo noloshaada leedahay, bale qorshayaasha kuu dhegsan, kuwa aad qoratay iyo kuwa aad maskaxda ku haysaba intaba qofun ha la wadaagin. 2 xidhiidhadaada, jacayladaada, yacni wax kastoo qof lamaanahaaga kaala dhexeeya in aad iyadana bannaanka keenin. 3 dhaqaalahaaga ama dakhligaaga ha noqoto, ha yaraado, ha badnaado, intuu doono ha la ekaado, marnaba bannaanka ha keenin. 4 waxa weeye tallaabada aad qaadayso. marka aad qorshe ka mid a qorshayaashaada hirgeliso, xageed u dhaqaaqaysaa, maxaa ku xiga, tallaabada xigeed qaadayso qofna ha la wadaagin. kaliya qorshayaashaada sida ay u kala horeeyaan ama aad u kala qorshaysatay tallaabada ku xigto ku dhaqaaq, adigoon cidna ka sugayn caawin, adigoon cidnaba ka sugayn yacni inay cidaasi ay noqoto cidda ku socodsiinaysa, bal adigu inaad noqoto kan isagu dhaqaaqaya, qorshiisa u dhaqaaqaya. 5 oo ah qodobka u dambeeya waa arrimaha qoyskiina. in badan dhibaato badan oo haysata dadka xawiyaan inay arrimaha qoysaskooda ama waxa iyaga dhexdooda ka dhacay banaanada keenayaan oo dad kale oo laga yaabo in cadowgooda yihiin ay uga sheekeynayaan. waana inta badan meeshasha qoysaska laga soo weeraro inay sirahooda banaanka keenaan iyo waxyaabaha isku hayaan. 5 qodob waxay ku fiican yihiin inaad adigu noqoto waayahaaga laabtaada ku hayso. mawduucan intaas ku eegyahay. tan iyo kulanti dambe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.